قصة عجيب وكشة عبد الواحد بن زيد نيل أورنجري لصالح وعابد ريمك أيها هبين هذا كميدا صدق أدعو عيسان يو الله بريء أيو إله يو وحور إله يو قبلها مؤمناتك أنا ما ركتني أدوية الآخرة جنة يقول تلقى شيء حتى يأدونك جوغان إله يتصبوا لي هو سحر مركو دعاء يستيقظ كسحر منام بالغو يري قبل ميمونة السوداء الليلة عراق كنول مقالة كوفة كنول ميغا كوفة كنول أيا كمدا قبلها مؤمنات كجنة اللي قورين دولو مكو كبقاقي عراق بو تغي مقالة كوفو يمدي دادكي بو وريستي مرقاسا الله شيغو ليدي ورتاسي واتو معذورة دو دادكا ما سو دخ غشو مقالة ديبد ديده خولا كو دقتا waa iyada waxa rabay ii tilmaama halka mar uu tag baa lagu yiri wuxuu yimid iyadoo ari badan dhex joogta arigeegii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ay markaa huwanta salaad bay tukataa 800 maanu malan kitaabka inaan ka arko subaxdoo kaliya 800 oo rakacay tukataa way ka baxda way tukataa way xirataa way tukataa markaa bay dareentay qof bini aadan inuu meesha soo dhawaado ariga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaadii ka baxday ayay ku tiri ibn ziyad ibn zayd bay ku tiri ballankeenu halkan maahayna waa aakhire iska socod bay ku tiri wallahi magaciisiina way sheegtay muraadku u socdana way sheegtay arigeegiina uu eegaayo waraabihii baa iska dhex socdo oo la cabayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu in zaydina nahay oo arinka u socda ayaa ku sheegay waxay tiri xadiiskii nabiga maadin lowday inna al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa wama tanakara minha ikhtalafa xadiiskii nabi maxamed uu yiri arwaaxda bini aadamku waa askar ilaahay oo isku xidhan weeyaan caalam al-arwah baan wada joogaynay labadii ruux ee halka sare isku taqaanay adduunkana waa isgarano waa is-urino waa isfahmi hadday halkaa isku soo diidayna adduunyadana waa isdiidiye arwaaxdeena istaqaanee salaama bay ka tiri ballankeenuna waa aakhiro su'aal kale ma ku weydiiyaa i weydii bay ku tiri hadalkana soo gaabi arigaagan waraabuhu kaa cuni maaya maxaad ku akhriday buuri bal ii sheeg waxay tiri halla yaabin anigu ilaaha khaaliqa rabbigay xiriirkii naga dhexeeyey baan adkaystoon hagaajistay labada xiriirkii ka dhexeeyana ilaahay baa hagaajiyey tiri إنكم ما أنت الدين مركز لهذا القاضي وحنو هاي سنة دين تمنفعته دويني آخرة وانت الله بس وضن كيمن بري أنكو جوجنوج اجتماعي كقريب قالينا أيا قاعدين لان كروزر النهار مري حاجة دموها كقرنا الدنيا بالمال والآخرة بالأعمال الدنيا العقبة كو هيسا آخرة الأعمال بكو هيسا مي هذا القاسم وهذا العلمانيين تويان الدنيا دنيا يكون حقاقتها هذا دوني آخرة دنيا يكون حقاقتها هذا دوني لبدا دار دنيا يكون حقاقتها هذا دوني وعقوها يا عملك ونكسب باكوها يا أديقي يا إلهي حريرك إني قد حيون هقاج بس وتمات بني آدم كعالمك وأي قرن لا يهين وعلمك أن فهم الآله من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه برسولك يدي نك جعل إن أرزاقه الله واسعيو عمرك سنة الله داريو قرابدي ساحر يدي برسولك يدي رزق إلا إنه واسعي ما دونينه بل نك الرزق إلا الله واسعي دوني وقعت تل لكن حقيقة دون عيبك إنه مالك له رحمك حديدي أبها هو يدا أديرك أبتك habar yarta eedada ilmaadeerada walaalaha kuway dhaleen xidhiidhi lacagta laguma xidhiidhiyo lan tasi'u an-nas bi amwalikum walakin wasi'uhum bi bast al-wajh wa husn al-khuluq nabigu dadka lacag laguma deeqabu nabigu lacag dadka lacag kuma wada gaari kartaa dadka lacag kuma wada raali galin kartaa laakiin dadka waxaad ku deeqdaan buu rasuulku leeyahay wajiga furan iyo dabeecada wanaagsan wajiga furan iyo dabeecada wanaagsan dadka lacag laguma wada deeqi karo
khilaafadii cumar bnu khadaab radia allaahu canhu baytalmaalkii bay lacagtii halkaa noqotay maxaa ka yeella dadka u qaybiyey buuhi lacagta waa la qaybiyo haddana way hadhay jumco walba markii laga baxa salaada jimce dhallinyarta iyo dadka masaakiinta iyo ducafada lacagta wada siiya buuhi cumar cabdiraxmaan bin cawfa hadloo yidhi yaa amiir almu'miniin baytalmaalka wixii lacag ku jira haddaad tidhaahdo wada bixiya ilaahay nooma keena balaaye hadday balaaye berri timaaddo maxaan gaashaan ka dhigannaa iskaga difaacnaa buu ka yidhi markaasuu yidhi cabdiraxmaanow carabkaagaa shaydaan baa ku hadlaya buuhi maanta laqananii allaahu xujatahaa wa waqaanii sharahaa buu ka yidhi hadalkaa aad tidhi xujadiisa ilaahay baa ii laqinay balaayada soo socotana sharkeega ilaahay baa iga badbaadiye oo naga badbaadiye balaayadiiyo masiibada imanaysa waxaan u diyaarsaday maad garan buu yidhi aan u diyaarsannay maya nebi maxamed wuxuu u diyaarsaday baan u diyaarsannay buu yidhi waa maxay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebiga haddaan haysanno balaaya nagu dhici mayso balaaya noo iman maysa buu ka yidhi waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib sayidina cumar faaruq aayaddaasuu akhriyey aayaddaasaan akhrisanaynaa oon haysannaa haddaan ilaahay xadhiggiisa haysanno oon iimaan iyo taqwad kaamila aan leenahay cidhiidhi kastoo nagu yimaada meelaa ka baxnaa ilaahay noo yeelayaa arsaaqadana meelaa ka filayn baa ilaahay naga siinaya silatu raxim raximkoo la xidhiidhiyo arsaaqadda way ziyaadinaysaa istikfaartuna arsaaqadda way ziyaadinaysaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara istikfaarta haddii lala yimaado arsaaqadda ilaahay waasicinaya taqwadii baa arsaaqadda ziyaadinaysa taqwadii tawakul haddii ilaahay la tala saartana low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu الطayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaanan buu nebigu yidhi haddaad ilaahay talada u dhiibanaysaan tala saarashadii ilaahay xaqa uu lahaa in loo tala saarto sida shimbiraha u quudiya ilaahay nii quudin lahaa buu rasuulku yidhi shimbirtu subaxdii waxay ka baxaysaa gurigeyga iyadoo caloosheedu ay maran tahay waxay soo noqotaa iyadoo caloosheedu ay buuxdo dukaanka kama shaqayso beerna ma falato xoola ma dhaqato yaa arsaaq ilaahay baa arsaaqa tawakul acmaashaasi haddii jidhkeenna ay ka soo fusho bay culimmadu leeyihiin nolosheenna adduunyada markaa waxay noo noqonaysaa janno ku sug maanta muslimiinta markaad eegta noloshay ku jiraan janno ku jiri maayaana cadaab baa ku jirnaa maanta muslimiintu adduunyada dusheeda dadka cabsanaya maanta waa muslim dadka qaxaya waa muslimiin dadka lalaynaya waa muslimiin dadka islaynaya isdilaya waa muslimiin dadka la caawinaya waa muslimiin dadka loo gurmanaya waa muslimiin dadka xerooyinka waaweyn loo samaystee ee qaxootigooga la qaabilaya waa muslimiin khilaafadii cumar ayaa abaar baa ka dhacday magaalada madiina iyo duleedkeega aryaaf almadiina dadkii miiga ahaa xoolihii baa ka dhammaaday magaaladii bay u soo qaxeen cumar bnu khadaab reer madiinuu tarkiibiyey waxaad haysaan la baxa buu yidhi nin walba wuxuu hayey buu bixiyey markaabaa dadkii oo dhan raashinkii la siiyey abaartiibaa daba dheeraato roobkiibaa raagay maalin walba 7 qof baa dhimatoo la aasa maalin walba 7 qof baa dhimatoo la aasa markaasuu cumar bnu khadaab warqad buu u diray camar bnu caas oo masar jooga wuxuu yidhi adigaa jooga waddankii barwaaqada badnaayee webiyaalka lahaaye soo dir macaawano markaasuu soo dira maaragtaane macaawano awr raashin laga soo buuxiyey macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyey haddana abaartii way daba dheeraato roobma di'ine gaajadii way sii ziyaaday faqrigii uu sii ziyaaday abaartii way sii ziyaaday nin saxaabiya orgi yar soo qabtay orgigii buu qalay hilibba uu ka waayey lafa mooyaane